marka hore isimkayga waxaa waye Suldaan Iftiin Maxamed Cali oo ka mid ah salaadiinta gobolka Gado. waxaan hadda isugu nimay shirkan jiraad xafiiska gudoomiyaha degmada Jazakumullahu khayran. inaan isugu imaadno baahi jirtay wey dhibaatan haysay oo aan la saaxan weyno la hurdo weyno la ergali weyno ay noqoto waana dhibaato muddo badan jirtay weeyaan. dhibaatadaas waxay nooga timid sida hadda shirka jiraad uu ku xusan yahay ninka madaxweynaha ka ah ee Puntland ee Soomaaliya ninka ka ah madaxweynaha weeyaan. sidaad ogtihiinba Soomaaliya afarta sano hadda la soo dhaafay dawladdii shaqaynaysay inta dhibaatada uu ku hay oo caalamkooda loo ogyahay iminka uu ku daray Jubbaland wuxuu ka dhigay xaafad ku taala Garowe ka dhigay xaafad ku taala Garowe uu ka dhigay waxaana yeelay wuxuu ogaaday Puntland inaan Jubbaland inaan maamul ka dhisnayn maamul isaga ayaga dadkiisa wato inuu san ka jiray cidla tahay buu arkay oo isaga iminka madaxweyne u ah meesha la rabay mataqaan Jubbaland meesha la Puntland waxaa loo yaqaan hooyada federaalka waxaa loo yaqaan macnaheedu saldhigga dawladnimo ee Soomaaliya meesha laga asaasay ama taariikhda kule inay tahay ama halganka haday noqoto dadka joogana way mudan yihiin laakiin waxaa dilay tii ayadahay oo la rabo in aad loo fahmo ninka maanta joogo Puntland madaxweynaha u sheeganay sidaan ognahay salaadiinta Puntland ma lama qabaan iyo shacabkooda lama qabaan ninkaas waana ognahay mowqifka ay ka qabaan ayagana waan u hambaleynaynaa waxaan leenahay war ninka idinku in la joogaa dhibaatada uu Soomaaliya saaka dawladnimadeeda uu ku hayo saa hawsha laga wadi la yahay waad aragtaane ninka si dhab ah ula hadla idinka gacantiinu gaartaan oo la joogay dulmiga intuu idinka ka daalay oo idinka ku hayo dulmiga oo ognahay hadda xildhibaanada u dambeeyay wixii lagu sameeyay oo ognahay nimanka salaadiinta oo ka hadlay caaqiliinta ka hadlay boosaaso sanadkii hore wixii lagu sameeyay aan ognahay isaga ninkii hadla oo isaga ka hor imaa siyaasadiisa waa maqan yahay ama sida gudoomiyihii baarlamaanka oo hadda maartay Puntland sida uu meesha ugu saaray markii isagu ra'yigiisa wax yar khilaafay isaga dadka la jooga saas uu maamulay isaga barasaaba ayaa dawladda dhexe isaga xukuntay isagu sal amarka qaadanay warba ilaahay amuurta balaayada waa su'aasha jawaabta rabta way warin isaga aan dawladda xukuntay amarka qaadanayn oo dibin daabeynay haddana isaga wixii ka hor imaaday isaga dilaya oo xilka ka qaaday waa su'aal raba in jawaabteeda la helo way arrin la yaab leh way arrinta iyada waxa inta dheer anagu Puntland shacabka degan walaalaanahay waxa la yaab leh in ninkii madaxweyne noqdo oo Puntland ba inuu na dhibaatay dani markii la doortay dadkii Soomaalida oo siyaasadda maartay falaqay waxay yiraahdeen war Cabdiweli mid kala ka darbay oo ka xun maanta tii ayadeed baa noo cadaatay inuu yahay nin maartay Soomaaliya dawladnimadeeda aan rabin taas nin walba wuu ogyahay waxa kale oo uu dagaalamayaa isaga markuu hadda ra'iisul wasaaraha u tagay markuu u tagay hal qodob la weydiiyay afar ximlood oo ku lahaa guddiga doorashada inuu soo diro ayuu ula tagay ra'iisul wasaaraha markuu booqasho iyo shacabkiisa u tagay ka daba markii la yiraahdo kelmadda u geyntaas ay muxuu ku bedelay haddii isaga Puntland ay dawladda wax kaga maqan yihiin dadka shacabka oo reer Puntland haday wax kaga maqan yihiin wuxuu xaq u leeyahay in uu maaragtay isaga ay u hadlo oo yarana waxaan naga maqan oo masiibada ku dhacday sixir bararka ku dhacay oo iminka baar shacabka dhibaatada haysatay iyo masiibada duufaanta ay ku dhufatay inuu ka hadlo wax qabadka shacabkiisa loo qaban lahaa inuu ka hadlo markii la rabaa wuxuu leeyahay gobolka ciidanka jooga laga soo qaado gudoomiyaha aqalka sare ha lagu soo celiyo inuu guddiga doorashada maamulo Soomaaliland inuu maamulo yaa u tirsaday Soomaaliland buu xukumaa Jubbaland buu xukumaa magadu xukumaa maxaa u geeyay bal su'aal kale aydan hadana jawaab rabto way waxay ku tusaysaa cadowgnimo iyo haddii dhibaatada uu nagu hayo waxa Jubbaland qayrkeed waa hormaray waxay la hormaray dawladda noqon weyday ninka hor jooga markuu arkay dadnimo xumadiisu isagana ku qabtay meesha inuu magaalada Kismaayo iyo hormar goor ayuu ugu yiraahdo marka Kismaayo ka darahayso waxa la hadda Soomaalida markay kaftabayso waxa la yiraahdaa waxa diidan labada dekadood way waxa la ogaaday
Soomaaliya in kismaayo isagu gacanta ku hayo meesha isagu joogo inuu ka maamulo in saaka dowladda Soomaaliya ay ka dhaqaaq way inta boqorna loo hay oo horumar weyn oo la gaar lahaa iyo doorashooyinka dhici lahaa waqtigooda intaba in lagu baabiyo arintayada waxaan codsanaynaa ninkaas sidaa u dhaqmayo Soomaali maaha muslim lagu tilmaami kari maayo waana dhibaateeyay waad ogtiin waxa uu ka shaqeeyo waxaan leenahay marka koobaad shacabka walaalaha nahay oo hadda la joogo oo wax garadka oo hadalkiisa dhibsanayayna ka baqine wax naga qabteena hadday naga qaban waayaan annaga waxaan u guntanaynaa isaga maartay sidaan isaga celinayna saacadan laga bilaabo maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay cadowgnimo shacabka dhibaatada haysata uu u qabo weeyaan waxaan leenahay ha ka jooga arrintaas waxaan leenahay Soomaaliya kullaytaba annaga waxaan u naqaanay inuu buuxin doono kaalinka looga bartay shacabka Puntland iyo dowladnimadooda wixii looga bartay inuu buuxin doonaan u haysan markuu kursiga maay maanta laakiin maxaan ogaanay qabqablayaasha hore oo dagaalka ka dambeeya inuu yahay saaki taasana waa qosan kadib annagoo ah odayaashii dhaqanka ee gobolka Gedo waxaan isugu nimid saaka xafiiska gudoomiyaha degmada Banad Xaawo waxaana keenay waxna bartay oo mar walba naga soo gaarahayo marka koobaad sidii horeyba loogu mahad celiyay waxaan u mahad celinaynaa salaadiinta iyo isimada iyo garaadada iyo boqorada Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed ee Puntland waa u mahad celinaynaa waxaan qabnaa inay qabaan islaam baanu nahay marka koobaad waxaa fiican dadka islaamnimo inay isu xiriiriyaan oo islaamnimo dulmiga isaga qabtaan waxay isku tari karaan isku taraan ninkaas islaamnimo nagu muusan dhowrin Soomaalinimo iyo qarannimana ma uusan dhowrin ehel ka sokeeyo oo hayb ah nahay ma uusan dhowrin Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa kiisa daryeela mid kale ku daro waad ogtihiin Puntland Soomaaliya qoladii ugu horeysay waxna ay u dhisnaayeen bay ahayd haddana waxaad moodaa asaga waxa uu keenay oo sixir bararka iyo dhibaatada ah hadda inay la ciirciirahayaan waxaa fiican marka haddii Puntland ba Ilaahay madax ooga dhigay oo hadda asaga uu hor joogo kow Puntland inuu wax u qabto kadibna Soomaaliya iyo cid kale wax u yihiin inuu wax u qabto wuxuu madaxnimada markuu Ilaahay madax ka dhigay wuxuu bilaabay inuu Soomaaliyana dumiyo oo hadumiye islaamnimo iyo qabitaan iyo wadaniyad iyo Soomaaliyanimo waxa u raadiyay oo caamil u noqdo dawlado shisheeye iyo dad cadow oo guun ah oo Soomaaliya raba inay qabsadaan kheyraadkeedana qaataan yuu raba inuu u gacan geliyo waxa asaga uu haysanayo maamulaya xataa ma kadibna wuxuu u soo dhacay dhul usan xukumin Puntland buu xukumaa maamul dhisan oo gaar ah weeyo magaciisa la yaqaana mid kale oo gaar ah oo san xukumin buu soo dhaca dulmigiisa intuu ka soo tilaabay xuduudka yuu soo dhaca ujeedada uu leeyahayna waa laba qodob baa ka keenayso cadawtinimo uu u qabo haybta meeshan degan iyo nacayb Soomaalinimo labadaas ka keenayso waxaan leenahay marka Gedo adiga ma maamuli kartid waxaad rabtana uma yeerin kartid taada ku filnow midda adiga aad leedahay ku filnow tiisa daryeela mid kale ta ku daro Puntland markay ku mahadiso Soomaaliya u soo gudub adoo Puntland kala qoqobahay oo waan ku ognahay oo qabiil waligood ayna aqoonin ku bilaabay oo shacabka Puntland difo u kala gooyay oo nimankii la dhigi jiray harti kala qabyaaladeeyay oo majeerteen kala qabyaaladeeyay oo Maxamuud Sabaleebaan kala qabyaaladeeyay oo shaqadaada ay saas tahay inaad u soo gudubto Gedo oo aad damacdo inaad adiga u yeeriso waxa adiga aad rabtana aad ku maamusho waa ku garaad yari tiisa daryeela mid kale ta ku daro taada ku filnow meelaha aad waaridaysa iyo meelaha aad wax ka soo qaadanaysa iyo waxa aad rabtana waa la ogyahay caalamkuna waa iska warqabaa maantana qof walba waa la ogyahay calooshiisa waxa ku jira la ogyahay waxaan leenahay marka taada ku filnow waxaan leenahay dadka isku haybta anahay ninkaas
adinkaa madax nooga dhigay oo Puntland madax ooga dhigay wax ka qabta Puntlandna ma anfacayo Soomaaliyana ma anfacayo waxa kale oo dhan hal isku diido Soomaali baa leeyahay ururo badan iyo dad badan baa jiro laakiin wadaniyada iyo Soomaalinimada waa ka baxay oo waa nin caamil ah oo dana shisheeye wado naga qabta intaasaan in leenahay masiirka gedo ama goboladan hadda magac la isku raaciyay shacab Soomaaliyeed oo islaam ah degan cidii ay raali ka yihiin oo danahooda u qumayso oo islaamnimo ku xukumayso oo xuquuqdooda dhowrayso oo daryeelaysayna madax ka dhiganayaan cid xoog ku qabsatay madax uma noqonayso Axmed Madoobana saasaan leeyahay magacaygu waa nabadoon Maxamed Xaashi Deeriye waxaan ka hadlaynaa meeshan waxaan ku fadhinaa dhaqankii reesade ee gobolkan Galmudug intooda badan suldaamo garaadiyo nabadoono wax walba waa fadhiyaan waxa loogu fadhiyo danta laga leeyahayna waxa weeyaan kelmada aad u xun oo dhibsanay hadaan nahay gobolka Galmudug oo nagu soo noqnoqday oo dareenkooda aad noogu weyn yahay inaan ka hadalna maanta iskala ridino weeye arintaas waa arin Puntland nooga timid dhibaatooyin naga soo gaaray yaan rabnaa inaan ka hadalno adduunka u sheegno Soomaaliya u sheegno Puntland u sheegno ninka dulminaha oo na dulmay muddo badan na dulmahayay inaan maanta ka cabanayno iskana celinayno iska ridinayno inaan arintaas aan isugu nid maanta hadaan nahay dhaqankii reesade iyo maamulkii degmada oo gudoomiyay iyo xubnihiisa kale ay weeliyaan waxaan leeyahay marka koobaad waxaan mahad u celinayaa dadka reer Puntland oo boqorada leh oo nabadoonada leh oo samanadoonada leh oo ururooyinka bulshada leh oo dawladooda iyo dadkooda Soomaaliyeed ba jecel oo gaar ahaan aan baa wadaagtan noon isku haybtanahay oo wanaagsan oo Soomaalida jecel oo dhaqankooda iyo islaamnimada intaba jecel waan u mahad celinaynaa jawaabtoodu waan soo gaartay inayna la qabin ninkaas wuxuu sabaynayo waa ognahay waan ugu hambalyeynaa Soomaali jacaylka iyo annaga arintanada labaduba meesha ay ka taagan yihiin inta hambalye iga tahay dadka reer Puntland oo san ku jirin ninka madaxweynaha sheeganay waxaan cambaaraynaynaa madaxweynaha Puntland waa ninka la yiraahdo Saciid Dani ninkaas aan cambaaraynaynaa waan naga dhamaan waay dhibaato noola taagan yahay waxaanan ka mudnayn oo ilaahay caradiisa iyo 24 saac uu la taagan yahay saad la socotaanbu iskuulkii Soomaaliyeed oo dugsiga sare markay gada ku baastay ninka meel la dhiga la waayay way seegada u baasi kartaa bal fiiriya seegada u baasi kartaa ninkii waxaad ogeydeen laga maray waxa xigay mar kasta oo la isu yimaado oo madal Soomaaliyeed laga wada hadlayo wuxuu dhahaa gado ciidamada gado hadaan la soo qaadin wax soconaya male ciidamada waxay ka mid yihiin Soomaaliya daafaheeda badan kala joogo xuduudaha sugahayo yay ka mid yihiin wuxuu u jeedo marka ciidan ma ahayn waa dadka reegada nacayb uga jiro sababtoo nin Soomaali oo damiir Soomaaliyeed ku jiro ma aaminsani inuu saas dhigi lahaa oo intaasoo tanaaga ah dadka intaas ay u dhaxayso dhowr kun oo kiiloomitir inuu ku aabiyoon lahaa oo dulmi lahaa dadka masaakiinta oo dawladoodu iska xiibsanto sida ay tahay inuu dulmi lahaa qof Soomaali oo damiir Soomaaliyeed ku jiro ma aaminsan waxaan aaminsanahay ciddaas hadda uu u sheeganayo madaxweynaha Puntland inuu marka hore lagu qaldamay haddana iyaga oo dulan ku dhex joogo annagana uu na dulmaayo asaga waxaan dheelaa war nadaa haddaad nadayn weydo hadda waxay naga joogtaa inaan ku habaarno waad naga fogtay kol haddaad naga fogtay waa ku habaarayna ilaahay inuu naga kaa qabto ilaahay dadka inuu kaa qabto ilaahay dulmiga Soomaaliya aad ku hayso inuu kaa qabto hadduu asagu yahay waxbay ahaan lahayd meelaa laga soo bitiriyayaa baa lagu leeyahay carabahaasaa dabada ka wado dawlada kala dabada ka riixaya dadka Soomaaliyeed iyo gadaa lagu duleynaya fikir uu leeyahay ma wuxuu noolaynayo waxaan dhihi lahaa ninkaas hana daayo ilaahay naga qabto war amiin dhaha ilaahay baan raacayna ilaahay naga qabto waxba kama qabno waxba kama wadano ilaahay naga qabto ilaahay kaas naga qabo way ga dhigay salaamu calaykum